hadafkeenu waa joojinta tacadiyada lagula kaco caruurta halkudhigani waxa uu astaan u ahaa xuska maalinta caalamiga ah ee caruurta ee ku beegan 20 bisha November oo sanad kasta dunida laga xuso magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxay kamid ahayd magaalooyinka ku yaala Somaliland ee maanta sida weyn looga xusay xuska maalinta caalamiga ee caruurta haddaba hay'adda wadaniga ee Ayora oo kaashanaysa hay'adda badbaadada caruurta ee Save the Children ayaa waxay maanta ku qabteen munaasabad magaalada Boorama munaasabadaas oo lagu xusayo maalinta xuska caalamiga ee caruurta waxaana ka soo qayb galay munaasabadani mas'uuliyiinta laamaha kala duwan ee wasaaradaha gobolka Awdal ciidanka ammaanka arday kala duwan iyo dadweynaha magaalada Boorama iyo sidoo kale maamulka sare ee hay'adda wadaniga ee Ayora munaasabadani ayaa ugu horeyntii wax lagu daafuray ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee ay caanka ku yihiin dadka dega gobolada galbeedka Somaliland geesta kale intii ay munaasabadani socotay ayaa wax halkaasi lagu soo bandhigay riwaayad ka turjumaysa tacadiga ka dhanka ah ee caruurta loo geysto ugu horeyntii wax halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda wadaniga ee Ayora Master Idris Farax Muuse waxaana uu ka waramay maanta waxaad arkaysan in caruur badan ay dhibaataysan yihiin in caruur badan iyo qoysas badan ay ka soo farakaceen gudaha Somaliland gaar ahaan gobolada bariga iyo galbeedka runtii abaar aad u xun baa jirta abaartaasi oo saameysay dad iyo dunyada caruurta waa kuwa ugu nugul runtii deegaanadeena waxa soo gaadhay caruur badan oo dhibaataysan oo loo baahan yahay in loo gurmado iyadoo caalamku dhammaantii uu iska kaashanayo sidii loo daryeeli lahaa caruurta daryeelka caruurta in adduunyadu meel uga soo wadajeesato oo gacmaha la isku qabsado oo loo wacyigeliyo caalamka oo dhan si loogu wacyigeliyo maalintan loo asteeyay ee caalamiga ah oo adduunka oo dhan maanta oo kale looga dabaaldego geesta kale iyaguna wax hadalka iska daba qaatay madaxa mashruuca caruurta ee hay'adda wadaniga ee Ayora Cabdinaasir Daahir Ismaaciil iyo sidoo kale isduwayaasha laamaha wasaaradaha kala duwan ee gobolka Awdal iyaga oo dhamaantoodba ka dhawaajiyay tacadiyada caruurta soo gaadha way farabadan yihiin waxaana ka mid ah tacadiyadaasi in caruurta la jirdilo oo lagu jirdilo meelo kala duwan hadday tahay bulshada dhexdeeda hadday tahay guriga ilmuhu ka soo baxayo iyo hadday tahay suuqyadaba anoo ka wakiilo wasaaradda waxbarashada annaga waxaa naga go'an sida siyaasadda waxbarashada ku cad in laga ilaaliyo tacadiga caruurta waxbaranaysa ama jirdil ahaato ama xagga maskaxda ahaataba in laga tirtiro wixii dhibaato u geysanaya oo waxaa ku taala in ilmaha loo sameeyo dhiirigelin iyo wacyigelin inuu ku dhiirado inuu waxbaran karo inuu hadli karo daryeelka caruurta Somaliland oo dhan gobol ahaan maalin walba oo caankana waan ka qayb qaadanaa wasaarad ahaan waxaana mar walba waxaan diyaarinahay in caruurteeda iyo inta ku hadla buhoodeen ee daryeelka caruurta gobolkeeda aan si midaysan uga qayb qaadano dhowrtay dheefuga helaan ilmaha lagu dhololiya dhabada sabuu maraaye dhibaataha laga ilaasho waa intay ka weynyihiin waa intay ka aqli badan yihiin iyo intay hoy ka soo kaceen wuu waaye ilmaha yare halkan jooga inuu hoy galo meema waaye laakiin maxaa haya dantaa keentay inuu halkaa maanta istaago ama uu maanta qaato baalashuu ku soo baalasheeyo qof qaybkiiya oo xaq la mida leh inanka jaamacadda dhigta iyo ilmaha yare wax baalasheeya waa isku xaq isku soo wada duubo xuska maalinta caruurta ayaa laga xusaa dunida oo dhan marka la gaadho 20 November iyadoo uu ujeedaduna tahay sidii loo joojin lahaa tacadiyada ka dhanka caruurta waa nuuc kaliya telefishinka caalamiga Star
magaalada Boorama.